nabad iyo naxariis korkiina haata dhammaantiin meel kasta aad joogtaan. Waxaan rabaa inaan ka hadalno dhowaan barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan waxa sababay ama salka ku hayso iyo meesha ka imaanayso kala sarreynta haweenka iyo ragga oo anaga dhaqan ahaanteena iyo waxyaabo badan xiriir ah. Waxaa jiro bulshooyin ka adduunka waxaan soo wad mareen wayna ka dhaxaysay marka bulshada qaybna way sareysay si qaybna way hooseysay. Waxaasna waxaa sabab u ah waxyaabo oo misogynistayaasha ama rag waxaa jiro oo jinsi nacayb ah ama waxyaabo la xiriiro. Marka dhaqamadaasi dalalka qaar way ka gudbeen kuwana maysan ka gudbin. Waxaan rabnaa barnaamijyo ku saabsan arrintaas inaan cabirno oo aan maaragtay diiradda ku saarno meesha salka ku hayso qaabka iyo marxaladda soo martay. Annaka dhaqankeena weli dhaqanka baadiyaha waa qaabka baadiyaha u noolnahay. Waddanka harta joog galbeed joog meesha harta joog. Marka waxaan rabnaa inaan waxaasi aan ogaano meesha waxa ka jiraan. Waxaa kaloo arkaysaa bulshada marka qaybta isku haysta inay sareyso oo ragga ah iyo sidaas ay tahay waxay diiradda saaraan qaybta u arkaan inay ka hooseyso. Laakiin qaybta hooseyso ama qaybta loo arko inay hooseyso haweenka inta badan kuma mashquulaan nimanka ama ragga. Okay. Marka maxaa sabab marka qaybta sareyso waxay ku mashquulaan qaybta hoose waxayna dareemaysaa qalqal haddii ay aragto qaybta hoose oo dhaqdhaqaaq yar oo horumar ah ay sameynayso waa qalqal gaar. Tusaale ahaan maanta marka aragto gabar oo wax baratay isku filan nolol fiican sameysto ragga waa aragtay inta badan waxbay ka sheegaan way daciirsadaan ciladay u yeelaan. Marka maxaa sabab marka isaga sareyntii isaga oo iska haysto ninkaasi ayaa waxaysan ka maarmin inuu hooseysiyo adigan oo gabadha ah oo ku hooseeyo. Marka sareyntiisa iyo waxa isku xiran inuu adigu ku hooseysiyo marka qalqal oo dareema marka si qalqalkaas iyo waxyaabahaas waxa sababay iyo arrimahaas mowduuc ku saabsan ayaa rabaa inaan ku iftiimiyo. Waxaa dhici karto dadkeena Soomaalida ah maadaama anaka hal dhaqan ah soo barbaarnay wax badan isbedelay laakiin dadka weli waxa waay dad oo preconceived ideas waxa la hayo aragtida hore ay haystaan. Marka way adkaanay doontaa sida filayo inay aqbalaan fikradaha ama arrimaha soo bandhigi doono. Laakiin ugu meesha ka imaanay ma ahan wax ay guud laakiin wax fikirkeyga ah ayaa marka uu sheegaya sida ugu habboon oo aan u arkaa maartay kala hadlaya macnaheeda kama dhigno in aad ku qasbooyo ama inaad dhageysan ama inaad dhageysto iguma qasbanid laakiin waxa ku soo bandhigo dhageyso kadibna waxa ku sheego wixii ka anfac kala bax wixii aan ka anficin iska daa. Qasab ma in aan weerarto ama personal ahaan shakhsigeyga aado muhiim ku ma ahan waxa kala hadlaya muhiim ku ah fikir hadlooya hadaad fikir hayso fikirku burburi hadaadan fikir hayna dhageyso ka tag. Sideeda macnaha marka ka hadlayno sheeg wax kasto kugu cusub marka maanta aragto waa adkaanaysa in aqbasho. Adduunkuna u jeedaa waxaa marona waqti oo teknolojiyada aad u horumartay dadka isdhexgaleen gabar iyo wiil maartay sheeg aan loo kala qaadanay muruq gabadhan xafiis fadhisa shaqo qabanaysa wiilka xafiis fadhiya shaqoona arday la leeyahay laba galaas laba kursi isku dhigan fadhiisiin waxbay barnaysa inta aad bartay ay barnaysa gabadhan wax ugu duwanta ma lahan. Inta aad qaban kartaa marka hadda dhahdo saas qalad waa maxaa nuu soo kordh dhaqankeena meen dhaqankaada shalay marxalado maray Soomaa marxaladda dhaqankaada wuxuu ahaa baadiyaha la joogay muruq lagu faanin jiray xoog waran la qaadi jiray gabdhahana dagaal iyo waxaas rafaadkaas ma galaan. Inkastoo hadda aad waqtigeeda marka fiiriso adduunyada gabdhihii ay noqdeen ciidamo oo military ku biireen booliis ku biireen meel kasta ku biireen booliisadu waa arkaa gabdho waaye military soo gabdho waaye marka dhan kasta way ku biiri karaan marka muhiim maaha waa in salaama.